بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 435 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، والرجل خرج حاجا. رواه أبو نعيم في الحلية، والحديث صحيح. إخوة الإسلام والإيمان، ما أنت تاريخ الإسلام كي تايسيدي طبنكي بشي طبنات شوال سنة تكون أفر بغلا فرطن يشان إسلام كان وافقسان تضبي لباتنكي بشي أفراد سنة لبدا كون لباتن إيو أفرد. waxaanu ku jiray kitaabkeena ugu magac daray almuntakhabu saxiix sunan nabawiya qaybtii ku saabsaneed xajka iyo fadaaishiisa الترغيب في الحج والعمرة فضل متابعة الحج والعمرة baanu soo maray idan xajka iyo fadaaishiisa waxaanu ka soo hadalnay ilaa dhowr fadli baanu soo sheegnay oo ah xajka oo la israaciyo fadliga ay leedahay, sidoo kale xajka iyo cumrada jihaadul kabiiri wadaciifi wasagiiri walmar'a inuu yahay jihaadkooda. waxaa kaloo saddexaadan soo qaadanay alxujaaju walcumaaru wafdullaahi, ninka xaajiga ama muctamirka in uu duyuuf raxmaan uu ku jiro wafdiga ilaahay inuu yahay. ciwaanka afraad iyo fadliga afraad ee maanta aan qaadanayna waxaan ciwaan oga dhigaynaa halaaatun fii damaan illaahi caza wajal: saddex qof ama saddex sinfi oo muslimiinta ka mid a damaanada ilaahay, kafaaladiisa iyo ricaayada ilaahay iyo xifdiskiisa ayay ku jiraan. damaanada ilaahay waa kafaaladiisa, kafaalaqaadkiisa, xifdinta ilaahay uu xifdiyey, ricaayada ilaahay uu ilaalinhayo iyo wixii ku saabsan ayay maaragtay dadkaasoo dhan ay ku jirayaan. idan xadiidkan waxaa soo saaray rag badan baa soo saaray, laakiin waxaan ka soo qaadanay abu nucaym fi xilyat alawliyaa, waana xadiid saxiixa sheekh albani raxmatullaahi calayhi, saxiixu jaamic sagiir iyo keyrkii buu ku saxiixinaya, iyo saxiix targhiib watarhiib. inta markaan ka gudbo ikhwati fillaahi, sharaxa xadiidka muxuu yahay? abu hureyre oo nabiga ka warinaya wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam: halaaatun saddex sinfi fii damaanillaahi, damaanada ilaahay bay ku jiraan. damaanada ilaahay maxay tahay? ricaayatuhu wa xifduhu wa kafaalatuhu wey. ilaaliskiisa uu ilaalinhayo, xifdiska uu xifdinhayo, kafaalaqaadku kafaalo qaadahayo, shar iyo xumaan oo dhan buu ka xifdinhayo, ka ilaalinhaya adduun iyo aakhiraba. marka damaanada ilaahay ayay saddex sinfi oo muslimiinta ka mid a damaanada ilaahay oo kafaaladiisa, xifdinta ilaahay, ricaayada ilaahay iyo ilaaliskiisa, intaasoo dhan bay ku jirhayaan. damaanada ilaahay bay saddex sinfi oo muslimiinta ka mid a ku jiraan. waa kuwa saddexdaas: rajulun nin weeyaan. ka koobaad alawal rajulun nin weeye kharaja baxay ilaa masjidin, masaajid u baxay oo min masaajidillaahi, masaajida ilaahay ka mid a. waa nin masaajid oo masaajida ilaahay u baxay. bixitaanka uu masaajidka u kacay kuma xidhna keliya inuu salaad kusoo tukanhayo. inuu salaad kusoo tukanhayo u baxay waa suurtagal. cilmi dalab iyo cilmi aad ka soo qaadatay ama cilmi ka soo akhridi inuu u baxay waa suurtagal. aad ku soo ictikaafti inuu u baxay waa suurtagal. aad wax ka soo qabati inuu u kacay oo masaajidka daryeelkiisa u kacay waa suurtagal. wahaakada waa qof u baxay masjido min masaajidillaahi, intuba wuu shamlinaya. kii inuu kusoo tukado u baxay, kii inuu ku ictikaafo u baxay, kii inuu cilmi ka soo raacdo u baxay, kii inuu dersi kusoo bixiyo u baxay, kii inuu muxaadaro iyo kelimo ka jeediyo u baxay, kii inuu muxaadaro ka dhegaysto u baxay. intuba marka way soo gelaysaa. marka rajulun kharaja ilaa masjidin min masaajidillaahi, masjid oo masaajida ilaahay ka mida ninkii u baxa, fa huwa fii damaan illaahi, fii kafaalatihi wa ricaayatihi wa xifdihi buu ku jiraa. kafaalada ilaahay iyo xifdinta ilaahay, ilaaliskiisa iyo ricaayadiisa ayuu ku jiraa. qofka labaad waa rajulu nin weeyaan kharaja baxay gaaziyan, isagoo duulahay fii sabiilillahi, jidka ilaah, liiclaa'i kalimatullaahi alculya ayuu u kacay. iclaa'i kalimatillaahi maartay ayuu u baxay, inay kelimada ilaahay ay sarrayso iyo towxiidku inuu sarreeyo, shirkiga iyo kufriga ehelkiisa ay dhulka galaan, iyo diinta ilaahay inuu fido ayuu u baxay, oo fii sabiilillaahi jihaad buu u baxay. ninkaana damaanada ilaahay iyo ricaayada ilaahay iyo alla ilaaliskiisa iyo xifdintiisa iyo kafaalada ilaahay buu ku jiraa.
قف كصدحات وباب كانوا بابا يسني وأنه حديث أسوأ قاضني والرجل ويان خرج بحي حاجا حج أبحي ما أعرف حج بأبحي نكاس حج كما هذا حج سنة أما حج كي فرض هذا ما أعرف حج بأبحي نكاس إذن صدح هذا في وحي كتشران ضمانة إلهي كفالقات كالله iyo ilaalinta alle iyo xifdintiisa ku jiraan runtii waxa weeyaan waa xifdi waa aad iyo aad dad u nasiib badan weey maxaa yeelay qofka kafaalada ilaahay gala ilaaliska ilaahay ricaayadiisa gala xifdinta ilaahay gala waa aad buu qiimo badan yahay dan ikhwati fillah sadexda amal waa sadex amal aad u qiimo badan weey masaajid ilaahay qofka u kaca cibaadaysi iyo cilmi iyo wanaag aad ka soo maartay aad u doonto u baxay iyo qof kelimada ilaahay inay sareyso u dagaalamay iyo qof xajka u baxay oo beydka ilaahay u kacay saddexdu waa acmaal shaaqi ah masaajidka u kicitaankiisa jihaadka u kicitaankiisa xajka u kicitaankiisa intuba waa wax ay naftu jecleen ma jeclaan naftu idan nafta waa in lagu qasbaa had iyo jeer al-imam Sufyan ath-Thawri Abu Abdullah Sufyan ibn Abdullah ما أرتي الثوري أيه وحده شري آد بحاجة تربية ينفت الليل هذا رجع آد وحلا قصة نقلية أيها المحيي بقول لحدا يكون أنت رحمه الله تعالى وحيي هذا الله قصة نقلية وحوه حداد أركت المال مركات ترى هذا آد وكعد النفط وين أقلين وكسب بوديس كل ما أوقع بعض النفط بان أقلين وكسب بودي هذا قاعد ماشاس شيطانku nasiibkiisa waa ku yaryahay waa meel goob khayr badan ka jira weeyaan meel ay nafta ogolayna ka soo boodata daarad waa meel shaydaanku uu ku jabay khayr badanna ay leedahay ku qasabo nafta haddaad aragti meel nafta ay ku sii ordayso saadi qalbigaaga u soo dhacay hore nafta ugu ordi durba tag meesha war meesha u kac kan meel ay nafta ku jiidayso oo jecesha u haliilaysa haddaad aragti shaydaankii baa nasiib weyn buu ku leeyahay كإلالي بور إذا إني مساجد أي نفط آدو وصلاة كسو تكتو وجماعة هاليشو أو اعتكافتو شوس قرآن كسو آخرساتو صلاة الضحى كو تكتو علمي أدونتو محاضرة وصول سمية أما أسود دقيس نفطو ما تعلو لبي توم برقرام بكو فريس إذا الخير بضم ماشا كتير ما كان نفط كوري حدا لقارب إن كلمة الله هي العليا مارت جهاد وبحث سود دقال أنت سود داوع أنت سود نمتي oo kelimada ilaahay darteed u dhimatay naftu ma jeclo marka waa inaad ku qasbto sidoo kale xaj inaad u kacdi oo safar gashi reerkaadi iyo caruurtaadi iyo shaqadaadi wax dhan ka tagtay kharash aad gashi dhul kale aad tagtay amaasha xajka culus aad gashi ciriirigaas iyo waxa soo naftu ma jeclo idan saddexduba naftu ma jeclo sadarteed thawaab badan bay leedahay laakiin waxa ka horeeya shuruuday leedahay koow ikhlaas waa inuu qofku u sameeyaa oo ilaahay dartii iyo daacadnimo waxaan uu qodanayana waa inay xalaal yihiin amalkiisana waa inuu shariicada islaamka waafajiyo wax waafaqsan yahay oo bidci waxa minna aan lahayn idan ikhwati fillahi maxalu shaahidka aan maanta xadiidkan ka leenahay saddexda qof ee damaanada ilaahay ku jira waxa kamida man maarta al-hajj maarta ninka xajka u baxay baa kamida rajulun kharaja haajan ayaa kamida idan ninka xajka u baxay damaanada ilaahay dadka galay ayuu kamid yahay أعماش الضمانة إله الأوجر وحاكمده صلة الرحم كاكمده وحاكمده عيادة المرضى ضدك حنوسان الله بوغضا كمده طلبة العلم جبا كمده وحاكمده مركي فتن إيه لبعض ضدك لحظة كده على نيك جوريسا كوي كذا كمده ونجوريسا مركا كبحن ومارت يا كمده إذا وحياة بضم أعمال بضم با وحاي كمده قفك السماية ضمانة إله إنه جلهي إذا إخوتي في الله هلك وحنو قاضني فضل جاء الحج كلهي inay kamid tahay saddexda qof ama saddexda sinfiye ilaahay u damaana qaaday kafaalaqaad inuu maartay damaana qaadayo xifdintooda iyo ilaaliskooda ricaayadooda iyo maartay ilaaliskooda oo ilaahay damaana qaaday kafaala qaaday inuu ku jiro qofka xaajiga baan halka maanta ku baranay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa bi asmaa'il husna wa sifaatil ula in xaq marka xaq una tusanuun irtaaqa xaq raacitaankiisa waxaan u baaqayaa walaalaha Soomaalida dunida dacalaheeda ku nool qof kaste oo ilaahay subhanahu wa ta'ala awood u siiyay inuu xajiyo oo xajkii faradka uu guto maal la ilaahay siiyay iyo maal uu ku guto
iyo caafimaad uu ku gaadho meesha falyubaadir ila alxaj xajka ha u degdego rag iyo dumar wuxuu doonaa xajka ha u degdego maxaa yeelay goor waxaa ku soo mari doonta ayna xoolahan gacantaada ku jiraynin caafimaadkan iyo xooggan aad haysatay gacantaada ku jiraynin ooda marka dhaqaaqi karin intii goor tahay adduunyo iyo naf yeena kula tegine rukniga ilaahay soo gudo sidaasaan naftayda iyo naftiinaba u dardaarmayo leeyahay qof kasta oo muslima oo Soomaali ah oo xajka aan gudanin ha u degdego oo awoodna u leh waxyaabaha taswiifka iyo waa samayn doontaa iyo sanadna ma samayn doontaa ha iska ilaaliyo war oo ma haysi jaaniska maanta aad haysati inaad bari heli war oo ma haysi idan u degdeg fabaadir marka ila alxaj u degdeg ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa بأسماء الحسنى وصفات العلى إنه حقا نتصنون إرزاق حق راعتان كيس هل مربع حديث كلفذي كيس آخرنا يا الحديث 435 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 في زمان الله عز وجل رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله ورجل خرج غازيا في سبيل الله ورجل خرج حاجا رواه أبو النعيم في الحلية والحديث صحيح هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.